السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا قربي وكسو دوادا ويلكي دنيدا iyo waxtarkii bulshada aniga waxaan ahay Xafsa halka naga daawanaysan Xafsa channel ala barnaamijkan waxa idin soo gudbisay isla aniga oo walaashan Xafsa ay soo dhawaada meel kasta ay joogtiin daafaha caalamka iyo gobolada Soomaaliya waxa idin rajaynayaa in caafimaad qabtiin alxamdulillah ana waa fiicanahay waa caafimaad qaba waa faraxsanahay sidaas islamad ee waxa rajaynayaa idinkana caafimaad qabtiin inaad caafimaad qabtiin sida anigu u faraxsanahay idinku soo laabtay ayaa rajaynayaa idinkana sidaas islamad ah inaad u faraxsan tihiin waa maalin kale iyo muuqaal cusub inkastoo iska caajis badanahay dhanka muuqaal duubista aanan u badnayn alxamdulillah xilli salaad ayaa la joogaa salaada ayaa kasoo dugtay salaada duhur muuqaalkan idin soo duubay laakiin ma aqaani goorto idin soo gaari doono waqtiga ay ahaataba laakiin waqtiga Allah subhanahu wa ta'ala ii saamaxo ayaa rajaynayaa inuu ni soo gaaro haddaad buuq yar maqlaysaan waa idinka raali gelinayaa waxaa rabaa muuqaalada noocan oo kale ma layga baranin inaan kasoo hadlo laakiin maalmahan dambe waa go'aansaday inaan kasoo hadlo muuqaalkan wuxuu noqday muuqaalkii igu cajiibsanaa noloshayda aan arko inta aan noolaa aadaan ula yaabay mar hore aan rabay inaan kasoo hadlo mar hore ayaa liigu soo meeshaan gareeyo oo liigu soo diray dhanka Facebook ah waxaan ka arkay dhanka Facebook YouTube ka meel kasta waa la soo dhigay run ahaantii aadaan ula cajiibay aadaan ula yaabay culays badan yani inaan ka hadlo culays badan ayaa dhiig saaray alxamdulillah maanta ay ii suurta gashay inaan ka hadlo muuqaalkan waa muuqaal dhalinta TikTok isticmaasha soo waad garanaysaa Soomaaliya dhalinta TikTok isticmaasho waa dhalinyaro TikTokna waxaa loo isticmaalaa laba waji oo kaliya laba wado oo kaliya qofka inuu wanaag u isticmaalo ama inuu xumaan u isticmaalo run ahaantii waxaa loo sameeyay xaflad dhalinyaradaas oo lagu sii dhiirigelinayo xumaanta ay wadaan fisqiga ay ku jiraan amal xumada heeso lagu sii dhiirigelinayo wal ciyaadu billah xafladaas waxa soo qaabisay gabar waxayna ku guddoonsiisay awaalmarino kala duwan bilad sharaf siday sheegtay bilada ay sheegtay bilad sharaf ay ahayd laakiin taas bilad sharaf ma ahayn waa biladooda aakhiradooda burburinaysa adduunkoodana burburinayso adduun iyo aakhiraba aysan diyaarsanin wax amal ah oo wanaagsan ee biritoole la imaan karaan maanta social media ay ku jiraan waxyaabaha lagu guddoonsiiyay awaalmarinada iyo hadiyooyinka la siiyay waxay tiri talentigooda ay la imaadeen wayna mudnaayeen in la guddoonsiyo run ahaantii aadaan ula cajiibay waan nahay waan yaabay meeshii wanaaga la soo bandhigi lahaa xumaanta la qarin lahaa oo ahaa dardaarankii nabiga maanta xumaanta ayaa la soo bandhiganayaa oo la faafinayaa oo hadiyooyin la isku siinayaa awaalmarino wanaagiina waa la qarinayaa bal ila daawada muuqaalkan yar waxaa rabaa dhalintan halkan aad ka daawan doontiin inaan fariin u gudbiyo fariintaas oo ah la talin wanaagsan insha Allah ila daawo bal muuqaalkan wax yar horeysay aan sameeyo ama aan yani ku fikiro inaan sameeyo Somali Night yaa ka gacansiiyay walahi horta gacan hadii la dhaho waa aniga kaliya laakiin garab oo yani in leela abaabulo ama hawsha leela qabto baa dad badan igu siiyay gabadhan barnaamijkan iyada ayaa soo aas-aastay iyada ayaa sameysay waxaa la weydiiyay su'aalooyin badan oo dhowr ah waxaa kamid ah barnaamijkan yaa kula aas-aasay barnaamijkan waxay tiri aniga aas-aasay ma jira qof ku garab siiyay maya ayay tiri xushay horta dad aad uga heleeyeen wax badan oo ilaawana way jiraan maxaan leeyahay iga raali noqda badanaa soo xushay tiri kuwa badanna waa ilaaway kuwa aad ilaawday waa falillahi alxamdu ilaahay ha ku soo hadeeyo walaashay macaanay maanta dhalintii loo baahnaa in awareness na siiyo wacyigelin loo sameeyo wacyigelintaas oo ah xumaantan ay maanta ku jiraan inaysan ka heleynin wax faa'iido ah
aakhiradooda inay ka burburiso, adduunkooda inay ka burburiso maanta. In lagu sii dhiirigeliyo maanta ayagana ay caddeeyaan, maanta ay dhahaan horumarkaan aan gaarin waan ku faraxsanahay. waxaa garab igu siiya walaalkayga, waxaa garab igu siisa walaashay, waxaa garab igu siiya hooyaday. maanta ma jirtaa hooyo gabadheeda xumaanta garab u siinayso inay jirto adduunka? ma u maleynaysaan? maya. taas anigaa ka jawaabaya, waayo anigaba gabar ayaan ahay, anigaba hooya ay dhashay, anigaba walaala ila dhashay, anigaba abaaya ila dhaltay. ma jiraan? maya. run ahaantii ma u maleyn karo. gabar ayaa jirto lagu magacaabo boqorada isteelka. waxay tiri maanta horumarkaan aan gaaray waxaa garab igu siiya hooyaday macaan. gabadhaanaa rabaa inaan fariin u diro. walaashay haddii aad idaawanaysid, aad idaawan doontid maanta sida aan hore muuqaalkaaga u daawado, waxaa tiri hooyaday waa ay geeriyootay, way ay dhimatay. ilaahay ha u naxariisto, jannada firdows allaha ka waraabiyo. laakiin waxaan ku dhihi lahaa hooyadaada been ha ka sheegin oo ha ka been abuuranin, waayo adduunkan ma joogto. aakhira ayay jirtaa, waa iyada iyo camalkeeda. waxay ku sugan tahay cid og ma jirto. camalkeeda iyada ayay godka kula jiraan. adduunkan wax ay ka diyaarsato ayay aakhiro la jirtaa. maanta waxay tiri hooyadeeda garab igu siisa. walaashay hooyada adduunkan kuma noolo, manana u maleynayo inay garab kugu siinayso. xumaantan aad ku jirtid maanta ma u maleynayo, manana dhici doonto. even hadday nooshahay hooyadaada labaad xataa ma u maleynayo inay garab kugu siinayso. waayo wax aad sameynayso wax lagu farxa ma aha, wax lagu qanco ma aha, wax bulshada faa'iido u ah ma aha, wax nafca ma aha, ilaa khasaare ma ahina. waqti ayaa kaa dhumaayo maanta. waqtiga wax ka qaalisan adduunkan ma jirto, xataa lacagta. waayo lacag hadday ku dhaafto maanta waad soo shaqeyn kartaa, laakiin maanta hal daqiiqo oo noloshaada ka mid ah amba si kale haddii aad burburiso ay kaa tagto, marnaba ma soo laabanayso. ilaa xilliga aad taagantahay aad ka faa'iidaysato maahane. dambi dhaaf weydiiso walaashay. maanta aniga kuma aflagaadeenayo, gabar aniga camal ayaa tahay. walaashay hanuunka waa mid ka mid ah nimcooyinka allah subxaana watacaala. nimcooyinka maaha inaad cuno haysato, inaad guri haysato, inaad socon karto, inaad hadli karto, inaad wax arki karto, inaad wax maqli karto. kaliya ma ahan hanuunka. hanuunka waa wadada allah subxaana watacaala raali kaaga yahay aad u hogaamsanto. maanta aniga maku dhahayo bani aadam ayaan ahay, qalad igama dhacaayo. bani aadan waa anahay, qalad waa niga dhacaya. laakiin alxamdulilah waxaan ahay qof iskontarooli karto. laakiin adiga maanta ilaah subxaana watacaala ha kusoo hadeeyo. insha allah waa rajeynaya fariintan inaad arki doontid. tan kale waxaan fariin u dirayaa muwado familigeeda, waayo waa gabar yar. wax walbo ee maanta ku dhaqmayso waa wax kusoo tarbiyeeyeen waalidka guriga jooga, ha ahaado walaal, ha ahaato hooyo. waa wax maanta tababar lagu soo siiyey, training lagu soo siiyey, waqti iyo juhdi lagu soo bixiyey ayaa social media la imaanaysa. gabadhaas waa gabar yar. hooyadeed amba aabaheeda ama walaalkeeda ama walaasheeda social media waad ku jirtaa. haddii aad daawanayso muuqaalkan, gabadhan mustaqbalkeeda ha ku ciyaarina, aayaheeda ka naxa. waa gabar yar. maanta wax go-aan ay gaari karto ma jirto. maanta wax ay kaskeeda u sameyn karto ma jirto. wax walba xaggiina ayay ka imaadaan. maanta gabadhaas maslax ayaa la saaray. waxayna tiri waan ku faraxsanahay heerka aan maanta taaganahay, waxaana garab igu siiyey walaalahayga iyo hooyadayda. subxaan allah walciyaadu billaah. walaalayaal, caruurta mustaqbalkooda ha ku ciyaarina. subxaan allah. gabadhaas waa gabar yar. xilliga iskuulkaa la joogaa, xilliga dugsigaa la joogaa. way dhaaftay eejka qur-aanka. maanta qur-aanka dugsi way dhigataa, laakiin meesha looga talgalo ma joogto. waayo eejka ay ku jirto iyo qur-aankeeda isma lahan. iskuul mar dhawaa la geeyey. war caruurta wanaaga ku tababara, wanaaga ku waaniya, oo qur-aanka diinta ilaahay bara, xijaabka bara. dharka ka tuurina caruurta. dharka waad ka turteen, waa caruur yar. beri markay waana weynaad dharkay tuureysaa. sidaan maxaa waay? waa la yaabaya. waa idinkaa kusoo tababarteen. iskuul hadda dhawaa la geeyey. walaalayaal, haddii aad muuqaalkan idin soo gaaro, waxaan rajeyn doonaa inayn adduunka hawada idin qaadin. aad caruurtiina mustaqbalkooda aad u naxdaan, aayahoodan aad ka fikirtaan. maanta dad badan ayaa jiro labadan qofood si gooni maanan usoo qaadan.
laakiin maraba badankooda inaan halkan kusoo bandhigo waanadan labadan qofood kaliya kuma socoto iyo taladan aan siinayo dadkoo dhan ayay ku socotaa tusaale bas ayaan usoo qaatay ma ahan dadka dhan haddii aan wax u sheegayo aan fariin u dira inaan dhammaantood soo qaato iyagana waa lamid sidaan oo kale ayaga sidaan isla tusaalo inay fahmi doonaan u rajeynaya tusaale kaliya ayaan usoo qaatay dad badan ayaa jira maanta ku faraxsan waxaa arkay dad social media xijaab kusoo gala maantana xijaabka tuure ayagoo qaaqaaban meesha kasoo muuqday walciyaadu billaah walaalayaal insha allah waxaan rajeynayaa muuqaalkan haddii uu idin soo gaaro inaad u sheergareyn doontaan muuqaalkan waxaan rajeynayaa hadduu idin soo gaaro inaad u sheergareyn doontaan walaalahayga qaaliga ah marwa inaan kusii dheeraado waayo waxaan ka hadli lahaa waa ka hadle walaalayaal xumaanta joojiya aad faafinaysaan wanaaga faafiya wanaaga qarinna soo bandhiga xumaanta qariya insha allah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته